السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي كحرن جنالك إلياس داعد سو دواada maanta waxaan soo qaadan doonaa qisadii saxaabigii weynaa ee Julaybiib. Julaybiib waxa uu ahaa nin faqiir ah oo midabkiisu madow yahay, dhirirkiisuna gaaban yahay, oo ka mid ahaa dadka ugu liita dhaqaale ahaan iyo magac iyo sumcad ahaanba magaalada Madiina. qabiilkiisa lama garanayo. wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu tagi jiray maryihiisa oo jeexjeexan, mana uusan lahayn wax hanti ah marka laga reebo kabaha uu sito iyo maryaha uu gashan yahay. wuxuu seexan jiray masjidka rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigii ilaahay sallallahu calayhi wasallam u yeedhay kuna dhahay, Julaybiibow, miyaanad guursanin? Julaybiib waxa uu dhahay, rasuulkii ilaahayow, yaa ii guurinaya? qurux, jaah iyo xoolo intaba ma lihi. haddana maalintii xigtay ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey isla su'aashii shalay. waxa uuna dhahay, Julaybiibow, miyaanad guursanin? wuxuu dhahay Julaybiib, rasuulkii ilaahayow, yaa ii guurinaya? muuqaal, xoolo iyo qurux toona ma lihi. maalintii saddexaad ayuu haddana nabigii sidii oo kale weydiiyey. Julaybiibna sidii ayuu ugu jawaabay. nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa waxa uu u diray Julaybiib nin saxaabi ah oo ka tirsan ansaar ka mid ahaa kuna dhahay, waxa isoo diray rasuulkii ilaahay, waxaanu idinka doonayaa gabadhiina si aan u guursado. markii hore reerkii waxay moodeen in nebigu gabadha soo doonay, markaasay isku dhaheen cidna uma diidi karto gabadhan rasuulkii ilaahay. kadibna waxaa loo sheegay in nebigu uunan doonayn gabadhan oo uu la doonayay Julaybiib. gabadha aabaheed waxa uu yidhi, ma Julaybiibkan faqiirka ah ee muuqaal xoolo aan lahayn ayaa gabadhayda soo doontay? markaasuu yidhi, waxaan la tashanayaa gabadha hooyadeed. markii loo sheegay in Julaybiib oo ah dadka ugu faqiirsan magaalada Madiina soo doontay gabadheedii, ayay dhaaratay oo tiri, gabadhayda oo aan u diiday hebel iyo hebel, sidee buu u guursan doonaa Julaybiib oo qurux, muuqaal iyo xoolo toona aan lahayn? gabadhii la soo doontay oo ahayd gabar mu'minad ah oo ku kalsoon ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa waxay ku tiri waalidkeed, aabba iyo hooyo, ma waxaad celinaysaan nin uu soo diray rasuulkii ilaahay? ilaahan ku dhaartay, waan guursanayaa Julaybiib. markaasay sii raacisay hadalkeeda aayadda qur'aanka ah ee suuratu axzaab aayadda 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما هبونا أمنا بنان مؤمن iyo haweeney mu'minad ah marka ilaahay iyo rasuulkiisa wax xukumayaan inay khiyaar u yeeshaan amarkooda. ruuxiisa caasiya ilaahay iyo rasuulkiisa wuxuu dhumay lumid cad ama wuxuu baadiyoobay baadi cad. gabadhii qalbigeeda iimaanka ka buuxay ayaa dhahday, ilaahan ku dhaartay, Julaybiib waan guursan, rasuulkii ilaahayna ima dayacayo. markay gabadha go'aankaa gaartay ayay aabbaheed iyo hooyadeed waafaqeen, waxa ayna u guuriyeen Julaybiib. Julaybiib gabadhii ugu qurxooneyd ansaar ayuu guursaday, balse markii la gaaray habeenkii arooska ama dhowr habeen kadib ayaa loo yeeray waxa loogu yeeboohay dadkii mu'miniinta ahaa dagaal lagu diriraya jidka ilaahay. Julaybiib waa soo baxay, wuxuu soo qaatay aaladii uu ku dagaalamayay, waana ka qayb galay dagaalkii. markuu dhammaaday dagaalkii ayaa la tiriyey dadkii muslimiinta ka geeriyooday, shuhadadii. kadibna nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa weydiiyey saxaabadiisa, yaa maqan dadka geeriyooday? saxaabadii waxay tiriyeen dadkii ay garanayeen, waxayna ka tageen Julaybiib. markaasuu dhahay, rasuulkii eebbe, anigu waxaan weysanahay walaalkay Julaybiib. kadibna waa la raadiyey Julaybiib oo waxaa la helay isagoo geeriyooday oo agtiisa ay yaalaan 7 ka mid ah gaalada dagaalamaysay oo meyd ah. kolkaasuu nabigii ilaahay yidhi, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, wuxuu dilay 7, isagana way dileen. kani aniga ayuu iga mid yahay maalinta qiyaamo, anigana asiga agtiisa ayaan ahaaday. waa uuna ku celceliyey dhowr jeer. kadibna waxa uu madaxii Julaybiib saaray dhabtiisa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
nebigu waxa uu faray saxaabadiisa in qabri u qodaan Julaybiib, waana loo qoday qabrigii lagu duugayay saxaabigan qaaliga ah. Anas bin Maalik oo xadiiskan warinaya waxa uu leeyahay, Ilaah baan ku dhaartay intaan qodaynay xabaashii lagu aasayay Julaybiib, waxa uu saarnaa jirkiisii daahirka ahaa bowdada nebiga, kadibna isaga oo aan la dhaqin ayaa la duugay. Gabadhii uu ka dhintay Julaybiib oo ajiibtay amarkii rasuulkii Ilaahay ayadana waxaa markay ciddo baxday soo doontay saxaabadii waaweynaa, nebiguna gabadhaas waa uu u duceeyey oo waxa uu dhahay, Allaahumma sabbi calayha alkhayra sabban walaa tajcal cayshaha kaddan. Rabbiyow waxaad ku shubtaa ama ka buuxisaa marwadii Julaybiib ka geeriyooday khayrka shubis, hana ka yeelin nolosheeda mid kadeed ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii waa ka ajiibay nebigiisii, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, oo gabadhii waxay noqotay dumarka ugu xoolaha badan magaalada Madiina. Julaybiib, Ilaahay raalli ha ka ahaadee, cidna maysan aqoon. Waxa uu ahaa maskiin faqiir ah oo gaaban, madow, cidna maysan danaynayn, laakiin waxa uu ka cabsaday Allah subxaanahu wa tacaala, markaasuu Alle ku arsaaqay shahaadada xaqa ah, oo isaga oo jidkiisa Ilaahay u dagaalamaya ayuu geeriyooday. Sidoo kale waxaa la soo arooriyey in markii uu nebiga dhabta ku hayay meydkii Julaybiib, la tusay habeenkiisii xuurul caynta ahaa oo u kala dheereynaya si ay u soo dhaweeyaan xabiibkooda maalintaas ay muddada dheer sugayeen. Qisada saxaabigii Julaybiib, Ilaahay ha ka raalli ahaadee, waxaan ka faa'iidaysanaynaa in uusan qofka muslimka ahi eegin wax hanti ah ama qurux ee qofka ku raaci karto muslimnimo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe noo saar. Haddii aad ku qanacday fiidiyowgan, nagu dhiirigeli like-ta, sidoo kale gambaleelka digniinta furo si aad u dhageysatid qisooyin noocan oo kale oo xiiso badan.